الحمد لله رب العالمين وبنستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اتقوا الله عباد الله khudbadeena maanta waxay ku saabsan tahay cudur aad u xun oo aad u weyn waa cudur khabiis ah dad fara badan halaagay dadka wuxuu ka baabi'iyaa qalbiga nafafyaalkana waa halaaga waxa la yiraahdaa al-hasad macsiyadii ugu horeysay ee samada ka dhacday waxay ahayd xasad bay ahayd markii uu xasday ibliis aadam alayhi salaam wa tuu oranayay ana khayrun minhu markii la yiri u sujuud asaga iyo malaa'iktiba aadam inay u sujuudaan ilaahay uu amray subhanahu wa ta'ala odaygii ibliis aha waa la kari waayay waxa ugu muhiimsan uu daliishanayeen waxay ahayd inuu ka sharaf badan yahay asaga aadam ana khayrun minhu marka waa nicmadaas iyo fadliga iyo sharaftaas uu ilaahay siiyay aadam ayuu quuri waayay wakadalika waxa la yiraahdaa macsiyadii ugu horeysay ee ka dhacda dhulkana waxay sabab u ahayd xasadnimo sababtana waxay ahayd markii uu qaabil uu xasday haabil awlaalkiis ahaa labadoodaba ilmo aadam bay ahaayeen xiina taqabbala Allah minhu wa lam yataqabbal min al-akhar markuu ilaahay ka aqbalay qurbaankii iyo sadaqadii qaabil oo haabil laga aqbali waayay watuu oranayay qala la aqtulannaka wa kudilayaa waa badilayba marka xasadku wax sahlan ma ahan labadii kiis ee ugu horeeyay midna fi samaa ka dhacay midna fil ardi ka dhacay xasidnimo ay ka soo bilaabatay hadaad fiirisidna xasadka ama qofka xaasidka ah waxa weeyaan waa arin yaab leh waaye hadii tusaale ahaan qof walbaba waxa uu xasdaayo oo xasidnimada uu ku jiro qofka kale oo walaalkiis barwaaqada uu haysto inay suusho adduunka soo ahaan lahaa adduunkani wax barwaaqa iyo wax nicmo ah ma jiri lahaynba ilaan qof walba midka kale ayuu jecel yahay in wixii ka dhamaadaan saas li ajligeed waxa yimid quraanka iyo sunnadaba arintaasi inay mamnuuc tahay watuu ilaahay oranayay subhanahu wa ta'ala wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd hatamanina wa ja'lanina waxa uu dhaxdiina ku kala saramariyay Allah subhanahu wa ta'ala qaarkiin qaarka kale bani aadamku waa kala cilmi badnaanaya waa kala dhaqaale badnaanaya madax baa la kala ahaanaya furasta la kala nasiibka waxa soo dhan adduunka ayaa ku dhisan marka hadii aad dhahdid midkan muxuu saan ku ahaaday muxuu kaaga kormaray muxuu kaaga dhaqaale batay muxuu kaaga cilmi batay muxuu kaaga karti batay muxuu kaaga aqli batay waxa weeyaan awoodi ilaahay iyo qadarki ilaahay baad faragelinaysaa nabigana waa tuu oranayay salawaatullaahi wa salaamu alayhi la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu hasdina hasgoynina hasna'ina wa la tadaburu haysu dabarjeedinina wa kunu ibadallahi ikhwana wa ahada adamada Allah wala la ahada nabi sallallahu alayhi wasallam laana udaro xun waay oo in la isnaco in la isgooyo in la isxasdo mujtamaca bulshada ay baabi'inayaan alaaqaadka dadka burburinayaan aakhiro iyo jiritaankeena adduunka ay baabi'inayaan waxa kale uu nabiga oranayay salawaatullaahi wa salaamu alayhi innal hasada ya'kulu alhasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab hasadka wuxuu cunaa xasanaadka aad shaqaynaysid salaadaada iyo quraan akhriskaaga iyo soonkaaga iyo wanaagaaga sida uu dabka u cuno xaabada
dabka markii xaabada saan dabka loo saaro dabka baabi'ay sooma saasoo kale buu xasadka macnaha degdeg buu u baabi'inayaa ajarka iyo xasanaadka uu ka baabi'inayaa aad shaqaysatay waxa kale uu nabiga xadiisku yiri sallallahu alayhi wasallam dabba baynakum daa'ul umami qablakum waxa idinku dhaxfaafay cudurradii dadka idinku horeeyay alxasad walbaghdha xasadka iyo isnaacibka hiya alxaaliqa waxa weeyaan way xiirtaa xasidnimadu waxay xiirtaa dadnimada iyo akhlaaqda wanaagsan iyo diinta xiirtaa diinta alxaaliqa la aqulu alxaaliqa ma dhahayo waxay xiirtaa timaha waxa weeye waxay xiirtaa diinta xiirtaa qofkaasi waxa weeyaan edab darro iyo diin darro waay ilaahay waxa uu qadaray iyo waxa uu qofkan haysto oo barwaaqo ah oo awood ah oo ilaahay u qadaray ayuu diidan yahay marka diin la'aan ayuu qofkaasi ka xambaaraya waxa kale oo yiri la yajtamacu fi jawfi 'abdin al-iiman wal-hasad qofka qalbigiisa kuma kulmi karaan al-iiman iyo wal-hasad iimaan qof qaba oo muslim ah haddana hasad wax kulmi kara maahan yaani qofka hasadka uu ku soo dhici karaa laakiin waa inuu iska celiyaa dhanka kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ammaanay in laga takhaluso hasadka waxaana uu ku tilmaamay salaamatu sadri laabta oo xaaran daacadnimada ikhlaaska fiicnaanta inay tahay hasadkoo laga takhaluso waxa uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا dadka khayr ka zuulimayaan inta ay isxasdayaan intaysan isxasdaynin rasuulka sallallahu alayhi maalmaha kamid ah asagoo fadhiya waxa ku soo baxay asxaabta rasuulkana ay wada fadhiyaan nin baa ku soo baxay ninkii waxa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inuu yahay reer jannaad marka Abdullah ibn Amr ibn Aas oo nin saxaabi aad u qiimo badnaa baa u bogay ninkaas reer jannaadka ah talo muxuu sameeyaa hada nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam waa reer jannaad warkaasi waa biyo kama dhibcaan way marka wuxuu isweydiiyay talo ninkani muxuu sameeyaa aad sameeysidee si aad jannada u xaqiijisid waa raacay wuxuu iska dhigay qof oo guriga xoogaa asagii abiis soo khilaafeen oo kale ayuu iska dhigay oo wuxuu yiri niyo saasa dhacday inaan kula joogaan rabaa soo dhawow buu ku yiri ninkii waa soo dhaweeyay waa la joogay ninkii dhowr habeen waxa dhacday ninkii kuma uusan arkin salaad badan wala siyaam ولا تهجد وحو ku arkay ninkii malahan xuyir warniyo aniga horta aabba isma soo dagaalin saasa dhacday nabiga saas yiri sallallahu alayhi wasallam adiga inaan ku dhabagalaan rabay waxaad sameeysid oo cibaado ah oo alla u dhawaansho ah oo anigana aan sameeyo oo si jannada aan u xaqiijiyo adigana hadda wax weyn kuguma aan arkine warniyo maxaad nabiga hadalkiisana waa biyo kama dhibcaan صلوات الله وسلامه عليه ما حد كم متيستي روحني وحكلا أنا ما سميه لكن قفنا قلبك أنا وحوها كما سيحن سلامة الصدر لا بحرنان قف أن عقدت أقبو أما أن وح أقبو كله أما أن حسد ينعب مجرو مركان سيحنا يا هبينكي أنا قلبي النظيف فيها كسيح ذا وح إسلاي هاي تاس إنه تهاي مركان سويرة ورسك دافوا midda way midaan gaari weyne anaga ninkaasi waxa uu nabiga reer jannaad ku yiri ma ahayn salaatu leyl fara badan mana ahayn soon mana ahayn cibaado kale ee qalbigiisa nadiif aha oo xor aha oo ilaahay ku xirna oo qof bani aadam ah waxba aan u qabin oo dadkan muslimiinta ah hasadka hadaan fasirno waxa weeyaan waa karaahiyatu ni'matin nazalat bi shakhsin inuu qofka naco barwaaqo oo qof ilaahay uu siiyay waa cilmi ama waa
madaxnimo ama waa dhaqaale ama waa karti ama waa ama waa waxay doontaa ama waa qurux way fara badan yihiin ilaahay uu siiyey oo qofka uu naco inay qofkaasi ka zuusho arrinkaasna waa xaraam laa yajuuz illa fi haqqi al-kuffari wal-fujjar dadka oo xun oo gaalada iyo wixii lamid ah hada balaayada ku dhacdo oo nicmada ay ka zuusho waa sax waa ayadu waa diin bay naga tahay laakiin in aad dadkan waxa weeyaan muslimiinta walaalaha dariskaaga oo ehelkaaga oo muslimiinta ah inaad la jeclaatid inay barwaaqada ka zuusho oo adiga ay kugu soo wareegto ama iska baaba'do arintaas waa khatar waxa la isku xasdanay waa nicmooyinka waay noocay doona ha noqdaan nicmo kaste qof muslim oo helay aad xasidina waa qofka muslimka oo aad xumaysay waay waana arin dambi ah oo khalad ah weeye xasadka waxa la yiraahdaa culimada afar nooc weeye dhahan midka koowaad waxa weeyaan qofka inuu jeclaado qofkan barwaaqada uu haysto waa qurux ama waa dhaqaale ama waa karti ama waa jago iyo madaxnimo ama waa aqoon waxay doontaa noqoto way fara badan tahay barwaaqada uu haysto in qofkaani ay ka soo wareegto asaga ay ku soo wareegto oo ay waxana koowaad waxa weeyaan barwaaqadaasi qofkaasi inay ka zuusho bas khalaas ay ka baabado inaysan asagana haysan adna ay kugu soo wareegin midda koowaad waa gaalada midda Ilaahay uu ka sheegay subhanahu wa ta'ala waa gaalo way moogta waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa gaaladu waxay jeclaysteen inay gaalowdaan sida ayaga ay gaalo u yihiino oo aad noqotaan sawa kuwa siman nicmadii iyo iimaankii iyo akhlaaqdii iyo islaamnimadii iyo diintii ayay kula naceen inay ka baabado marka waa tusaale waay hada gaalaan sheegayna laakiin muslimiinta dhaxdoodana way dhacdaayo inaad qof barwaaqa u haysto aad nacdid inay ka baabado adiga hadeer aysan kugu soo wareegina inay iska baabado mid labaadna waxa weeye barwaaqadii in qofkaani ka baabado adigana ay kugu soo wareegto qofkaani ilaahay waxa uu siiyay oo barwaaqo ah noocay doonto ha noqoto inay aftahanima kamida waxa kamid ah maal waxa kamid ah cilmi waxa kamida inay ka zuusho adiga ay kugu soo wareegto inaad jeclaatid midda saddexaadna waxa weeye midaasna maalka iyo ri'aasada iyo jaaha ay cilmiga gashaan midda saddexaadna waxa weeye qofka inuu jeclaado inuu barwaaqada aad haysatid oo kale uu gaaro isku dayo markuu gaari waayana uu jeclaysto inaad weysid adiga kii hore u dhaamaa kan kii koowaad ayuu dhaamaa barwaaqadan markuu kugu arkay adiga oo cilmi ah ama karti ah ama madaxnimo ah ama maal ah waxa doona ha noqdeen wuxuu jeclaystay inuu dadaalo isku dayo inuu adoo kala noqdo laakiin markuu heli waayay waa qaraaraya ay dhiijireen Soomaalida ayuu wuxuu jeclaanayaa adiga inay ka baabado gadaal dambu ka halaabay midda afraad oo ugu dambayso waxa weeye in qofka uu jeclaysto barwaaqada aad haysatid oo kale in asagana uu helo adigoo aysan ka baabi'in gaar ahaan xasadka wuxuu midkaani laba meel buu galaa waxa weeyaan qofka deeqsiga oo Ilaahay maal u siiyay iyo qofka Ilaahay cilmi uu barayo dadka baraya labadaas qofka waa lagu xasdi karaa yaani see lagu xasdaya waxa lagu xasdaya asagana Ilaahay inuu u siiyo wixiisa uu haysto adigana Ilaahay inuu ku siiyo sidoo asaga Ilaahay u siiyay oo kale labadaas shay waa midda afraad waay waa xasidnimo banaan waay waa arki doona xadiis baa sheegi doono maxay tahay qofkii oo barwaaqo iyo nicmo Ilaahay uu siiyay adna aad jeclaatid asagoo wixiisa isan ka zuulin inuu barwaaqadaas Ilaahay uu ku siiyay subhanahu wa ta'ala nabiga wuxuu oranay la hasada illa fi ithnatayn xasidnimo ma jirto illa laba shay baa la ogol yahay kan koowaad muxuu ahaa
رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق قف أو إلهي أوسيه مال كنا وحكم بحنا يا خيرك مساجدي دعوذي أغونتي مساكينتي وحويان دنتي عام كاهيد أيو كب بحنا يا قف كاس إلهي هبل وكلا يقدك إن بهدي هبل الله يقدك كلماتنا وحويان ورجل من قف أتاه الله تعالى علما فهو يعمل به ويعلمه الناس إلهي علم أوسيه أقول بو إلهي بري وكو عمل فلايا دتكنا وبربريا قف كاسنا إنه قفك وتمنيه ويرهدوا الله هل أو كلا يقدك أريتاسنا وحويان حسدك بناوي حاسدك برواقة إلهي أوسيه قفك ولالكيس وحو أركان مصيبة من الرالي النقنايا من فديسنايا إلا إن بابا أنا ما هي واساس قف كان درس كأيهين إسلا شقيان مسلم كيس ليهين صاحب كأيهين ولا الكيس وحو إلهي أوسيي بوديدن يهي قدر كان له ديدن يهي وأردى يا قلبي جيسي مسكح ديسا إلا وحن أي بابا أنا ما هي ساس دي الأجل جيت معاوية ayaa waxa laga sheegay wax kaste aniga waan awoodaa illa inaan xaasidka raali galiyo maahe laan xaasid lama raali galin karo fa innahu la yarda illa bi zawaliha xaasidku lama raali galin karo illa wuxuu rabaa waxaan suurtagal ahayn dadkan oo ilaahay barwaaqada uu siiyay maalka iyo cilmiga iyo kartida iyo ilaahay isugu daray inay ka baabaado rabaa markaas aniga ma raali galin karo yiri ayaa laga sheegay Muawiya ibn Abi Sufyan حسدك حليه هاي أسباب بوليه هاي لما سببات بنقول مهمسن العدوان والبغضاء عليتا ينعب وأنا لبعض الشيء حسدك كذا شانوي حسدك وحاويان وإيمانا يا وقفك لو حسد يا مركا عل إماضو مركا النعب إماضو مركا سوء إيمانا يا مركا هدو إماضو حسدك halkaas waxa dhacayso qofka inuu asagana uu ku baabao oo maskaxdiisa iyo qalbigiisa iyo ajarkii xasanaadka uu ku baabao waxyaabaha waxa kamid ah xasadka lagu ilaalin karo isaga ilaalin kartid in ilaa wixii suurtagal in la qariyo in kullu dhi ni'matin mahsud ni'ma kasta waxay leedahay wax qof xasdaaya saas la ajligeed waxa weeyaan in oo laga dheeraado oo qofka uu ila xad uu qariyo dadka xaasidiinta ah iyo ama qof kasto bani aadamna ilaahay inuu ka baqo ayaa muhiim ah xaasidnimada uu ka dheeraado naftiisana uu ku dadaalo ayaa muhiim ah waxa uu tilmaamayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam saddex shay qof ka badbaadaya malahan xaasidnimada waa khatar qofka qalbigiisa way ku soo dhacaysaa waa inuu iska celiyaa saddex shay kan koowaad waa malaha kan labaadna waa baasaysiga kan saddexaadna waa xasadka wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam waan idin sheegaya sida looga bixi lahaa saddexdaasba haddii aad wax malaysid isaga soco waxba ha isku dhibin وإذا تضيرت فمضي أيضا sidoo kale baasaysiga inuu qofka wax baasaysto buumeys waaye iyo waxaasa arkay waxaas iyo baasaysigaas inuu isaga socdo حاسدنمدنا وإذا حسدت فلا تبغي هسي جرجرين هسكسي رادين وحوليه هاي حسن البصري قف بني آدم مجرو إلا حاسدنما قلبي جيسا ويسوق ليسا لكن وإنه إسكا إلاليا بقول أو فعل إنه فعل أهان أما قول أهان أفليو قلبي جيسا ويكسر دعي حاسدنمدا إنه إسعليو أو قفنا أصلا كل من هذا الكيسة يفعل كيسة عذر كستنا وحوليه هاي دوليه هاي حسدك وحاد دواء لوا شيء العلم والعمل علمي أي حسدك وهدواء وحد أغانيسا سيدان كوب الله ونيبا مركا علمي لنا هاي حاسدك ولا لي هاي أو شركة لي هاي إبليس لكن كيسي دبي عدي سوطا لأن إبليس وحي هلاقي بحاسدني معه إلهي إن حريسيس كصوصاري إلهي وعروضي إلهي وسو عيريي سبحانه وتعالى ساس لأجل
xaasidnimaduna waa mushkilo maanta oo dhan waad murugaysan tahay oo waad ordaysaa oo qofkaas inuu ilaahay ka baabi'iyo barwaaqada halka qofkii uu yahay qof iska degan oo caadi ah midda labaadna waa al-amal amalka qofka markuu shaqeeyo oo dadaalo amalka saalixa ee cibaadada ah iyo amalka adduunka oo dhaqaale iyo shaqo iyo qofku ku mashquulsan yahay hadduu qofka amal ku mashquulsan yahay arintaasi aad buu uu isaga ilaalinayaa waxaana dhacayso in ay waxa weeyaan halkaasi ay ka baabaado saas la ajligeed xasadku waa waxyaabaha cudurada xun mujtamaceena waxaan nahay mujtamac isku dhex jira oo aad isaga warhaya oo walaalo iyo qaraabo iyo ehel iyo mujtamaca Soomaaliyeed aad isku dhex jira way saas la ajligeed xanta iyo xaasidnimada iyo isha oo caynta ah isha xasadka iyo isha waa isku mid dad fiirisid ayaa ku badan marka in laga taxadaro oo qofka uu qalbigiisa mar walba Ilaahay u celiyo oo uu aakhir xasuusto oo waxaan Ilaahay baa qadaray qadarka Allah ka soo horjeedaa القضاء والقدر إيمان كي كم التهاي إنه إسكا إلهي قفك لدونيا إلهي سبحانه وتعالى توفيق ذا نوافجيو ذنب جينا هرافة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهي دمبينا دم والدكنا ضاف إلهي أنت دمت والدكنا ونحريصه أنت النور إلهي حفظي إلهي مشايخ دينا يا علماء دينا إلهي أنت دمت ونحريصه أنت النور إلهي حفظي إلهي أمد دينا إسلام نمو يتوسنان يبرواقو يوحول بوها يكسن الله سي إلهي إسلام نمو يتوسنان يا الله كباق يبرواقا نسي إلهي عذرك النقد القات إلهي عذرك النقد القات إلهي أنت حنوصا عافي إلهي أنت حنوصا عافي وصلى الله على محمد وآله وسلم